kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal meel walba naga dhageysanaysaan waa barnaamij khaas aan ugu talagalnay ciidul fidriga isla markaana shacabka Soomaaliyeed daafaca caalamka ku kala sugan inay ugu ciidaan ciid wanaagsan ayaan diilaynaa meel walba naga dhageysanaysaan waxaad nagala socotaan barta fikirka iyo waliba fogaan arag.com ayaad nagala xiriiraan barnaamijku waxa idin soo jeedin doona halkan kaga tabin doona anigoo ah Maxamed Awd Cumar Maxamed Yumbi barnaamijku waxa igala qayb gali doona dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda aad iyo aad u fara badan shacab Soomaaliyeed daafaca caalamka nagala soo xiriiray sidoo kale barnaamijka waxa ka marneen oo ka maqneenin waraysi gaaban iyo waliba salaan uu soo marin doono tafaftiraha barta fikirka iyo waliba fogaan arag isla markaana ka hadli doona sababaha ay waliba dhaliyay in la soo aasaaso shabakadani markana kaalimaha suugaanta ayaa inta badan ku bilaabana markana aad ku soo maqan waa boqorkii codka iyo waliba heestii alla maanta ayaanta ciid wanaagsan meel walba joogtaan iyo ciid wanaagsan alla maanta ayaanta iyo ciid wanaagsan ilaahayna siiyay isaga kuwabaale ilaahayna siiyay isaga kuwabaale waa tahay dhegeystayaal meel walba naga dhageysanaysaan waxaan hawada idinka leenahay ciid wanaagsan waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeennii ciidda aynu ugu talagalnay barta fikirka iyo fogaan aragga ee shabakada fogaanarag.com markana waxaan bilaabi doonaa oon gudagali doonaa dhegeystayaasha Soomaaliyeed ee daafaca caalamka ku kala sugan in aan fursad u siino inay eheladooda iyo qaraabadooda ay salaamaan isla markaana ay soo bandhigaan halka ay ku nool yihiin qaabka loogu kala ciiday iyo farxadda ay damaashaadka qofka ugu horeeya ee qadka nasiibka u yeeshay in maanta waxa uu noqday marka hore magacaaga adoo ku bilaabayo iyo halka aad ku sugan tahay aniga Maxamed Abdiqani waxaan ka soo hadlayaa magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia maxamed Abdiqani waxa tahay qofka ugu horeeya ee barta fikirka iyo fogaan aragga ee barnaamijkiisa ee ugu talagalay ciidda marka hore aad iyo aad ay u mahadsan yihiin website-ka fogaan arag iyo shaqaalihiisa iyo dadka maamulayaashaaba fursadda ay siiyeen ummadda Soomaaliyeed waa tahay adiguna sidoo kale waxaan ku leenahay ciid wanaagsan ee ka waran halka aad ku sugan tahay waa meel barakaysan isla markaana ciid si weyn looga dareemayo qaabceenkii ayaa looga ciiday magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia wallahi si farxad aad iyo aad ayaa looga ciiday magaalada Jidda dadka waxaa moodaa in ay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin ciidan bisha barakaysan ku xigto ma sha Allah waa gartay magaalada Jidda waxay caan ku tahay Soomaali far badan iyo waliba waxay leedahay maqaaxiyo far badan waxaad moodaa haddii aan kula kaftamo alaabihii macmacaanka shushumowga iyo waliba xalwadii inay isdul saaran tahay aad iyo aad Soomaalida meel walba joogto dhaqankeeda kama tagta taasna waxay ku muujinaysaa farxadda iyo bashbashka la dareemayo ma sha Allah aniguna waxaan ku leenahay ciid wanaagsan yaad jeclaan lahayd in halkan aad ka salaantid Maxamed wallahi marka hore waxaan jeclahay inaan meeshan ka salaamo waalidkayga hooyaday iyo aabahay kadibna walaalahay iyo asxaabtayda qaaliga iyo intii maqalkii iyo muuqaalkayga taqaanba waa gartay dhamaanteena anagana waxaan ku leenahay hadiina nahay bahda fogaan arag waxaan ku leenahay ciid wanaagsan ciidan ciideeda ku gaar bashbash iyo barwaaqo amiin dhamaan kulligeen insha Allah waa tahay dadka nagala qayb galaya xagga ay waliba salaamaha ayagoo aad iyo aad u far badan markana waxaan gacanta aan u taagayaa qofka kale ee ku xiga isla markaana jecel inuu eheladiisa iyo waliba qaraabadiisa salaamo magacaaga iyo halka aad degantahay adigoo ku bilaabaya bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga Maquusta la yiraahdaa waxaan ku noolaa dalkaasi Norway waa gartay Maquusta ku soo dhawow barnaamijka ay kugu talagashay barta fikirka iyo waliba fogaan arag adigoo salaamaya ehelkaaga iyo qaraabadaada balse qaabka loogu iiday iyo la isugu diyaariyay magaalada aad degantahay ee dalka Norway Norway si fiican loogu ciiday inkastoo wadamadan reer galbeedka ciidii sidii Afrika ama dalkii Soomaaliya loogu dareemay laakiin waa la iska ciidaa dadku waa iska farxsan waa gartay ka waran yaad jeclaan lahayd inaad salaanto oo hal iyo labaad soo koobto waxaan halkan ka salaamayaa walaashii macaan ku nool dalkaasi Kenya عصب فرح سيدو كله هبيرتي مع سينم حسن سعيد دمان فميلكيغا ويل كان جعل ابتيغا waa تقادر يوسف gabartayda tuti la dhaho ku nool dalkaasi Kenya ma sha Allah ya asxaabtayda oo dhan meel kasta ay joogaan codkayga garanaysa ama muuqaalkayga waa dhamaatanagan waxaan ku leenahay ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisa ku gaar bashbash iyo waliba barwaaqo
waa tahay dhegaystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii salaamaha aynu ugu talagalnay ciidda shacabka Soomaaliyeed ee daafaha caalamka ku kala hayaamay in ayagu halkaasi salaamahooda isku kala gudbiyaan maadaama ay tahay maalin farxada markana qofka ku xiga ee nasiibka u yeeshay inuu nagala qayb galo asigoo ku bilaabaya magaciisa iyo waliba halka uu ku sugan yahay marka ugu horeysa halo aniga magacaygu waa Axmed Maxamed Cabdullaahi waxaan ku noolahay wadanka Norway magaalada Stavanger gaar ahaan waa gartay Axmed ku soo dhawow barnaamijka ay kugu tala gashay barta fikirka iyo fogaan arag.com barnaamijkiisa salaamaha ugu tala galay ciid oo ku dhawaad baradkii ka waran Oslo waxaan filayaa in ay tahay wadan aad u weyn wadanka Norway isla markaana ciid xafladooyin fara badan lagu qabanayo qaabka loogu ciiday iyo waliba sidaas ku diyaariseen والله سفيعنا لو قعيد يا سيدات وناس المسلمين تمشي كنا سفيعنا وقعيد أيام حلفة كلا جارجارة قفل بديجنايا حلفة قاسي حلفة دولة ما لا يقبتي ما ربنا هو لا قبتي أو دماش هذا مركا أساس واقرت عيدان عيده هره محا أديك رأي أما فكرة أكوك لدون وارقتها والله في قصص ما بعيده هره عمدنا كأو عيدنا وحساس هذا ديري مجرم waa gartay Axmed adigu ka faa'iideysanaya fursadan aad jeceshahay in halkan aad salaan hawada u marisid والله waxaan meeshan salaan ugu mareeyay inta maqalkayga iyo muuqayga taqaano Axmed ahaan asxaabteyda saaxiibkay gaar ahaan Maxamed Almasuul waa aabahay Maxamed Cabdullaahi wala saaxiibkay Sheekh Nuur saaxiibkay Cabdalla saaxiibkay Cabdi Xuseen saaxiibkay Mustafa saaxiibkay Carabi asxaab badan waa gartay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay salaantaasina waa ay ka gudoomin sidaan jeclahay hawada aad u mareysay waxaan ku leenahay anigana ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisa ku gaar bash iyo barwaaqo thank you my friend waa tahay dhegeystayaasheena weliba akhristayaasheena barta fogaan arag waxaa kaloo meesha ka marnaynin in waraysi dheera uu ku saabsan qaabkay weliba fogaan arag sababaha loo aasaasay iyo sidoo kale waxqabadkeeda iyo weliba guud ahaan saxaafadda Soomaaliyeed aan la yeelan doonaa isla markaana isku soo maqan Cabdullaahi Jaamac Cali oo ah tafatiraha fogaan arag balse markan waa tahay welina waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii salaamaha oo isla markaa ah barnaamij aad iyo aad u ballaaran isla markaana aan jecelnahay shacabka Soomaaliyeed ee daafaca caalamka ku kala sugan in aynu qancino si ay eheladooda iyo qaraabadooda ay u salaamaan markana qofka nasiibka u yeeshay bal aan eego magacaaga iyo adoo ku bilaabay halka aad degan tahay Axmed Maxamed Alida waxa deganahay Sweden Axmed ku soo dhawow waxaan ku leenahay ciid wanaagsan waa dhawahay ka waran qaabka looga ciiday ee wadanka Sweden gabi ahaantiisa iyo qaabka la isku diyaariyay wallahi aad la isku diyaariyay ciid aad u farax badan oo maanta lagu ciidayo dalka Sweden isku waraacay inuu bil laga ciido okay Axmed ka waran yaad salaami lahayd isla markaana oo aad wallahi salaamaha waalidiinteedu ku nool dalka Sweden ee qaasatan saaxiibkay muqoosta yare iyo ayaan ku nool dalka Nairobi waa gartay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaan ku leenahay ciidan ciideeda ku gaar bash iyo waliba barwaaqo waa tahay dhegeystayaal saaxiibayaal meel walba joogtaan waxaynu ku guda jirnaa damaashaadka ciidul fidriga aynu ku talagalnay shacabka Soomaaliyeed meel walba joogan inay nagula baashaalaan waxaana nagala socotaan barta fikirka iyo waliba fogaan araga stuudiyaheeda magaalada Dambush ee dalka Holland barnaamijku waxa idin daadaheen anigu waa Maxamed Daawud Cumar Maxamed Yumbi sidoo kale barnaamijku waxa igala qayb qaadan doono isla markaana aan wax ka weydiin doonaa barta fikirka iyo fogaan araga sababaha loo aasaasay iyo waliba waxyaabaha ay ku saleysan tahay salahaanteeda Cabdullaahi Jaamac Cali oo ah tafatiraha fogaan arag Cabdullaahi ku soo dhow marka hore waan ku dhawahay saaxiib Maxamed Daawud Yumbi ciid wanaagsan ayaan ku leeyahay anigana sidoo kale waxa ku soo dhawaataa barnaamijka salaamaha asxaabta aan ugu talagalnay balse intaan u guda galin waxaad tafaasiil naga siisaa qaabka iyo waliba shabakada barta fikirka iyo fogaan araga asal ahaan loo aasaasay maxamed adigoo aad iyo aad u mahadsan waxaan horta marka hore kaaga mahadcelinaa barnaamijka qiimaha badan ee barta fikirka iyo fogaan araga aad ku soo bandhigaysa maanta oo ciid ah si dhageystayaasha iyo akhristayaasha meelaha kala duwan ee caalamka nagala socda ay barta fikirka iyo fogaan araga ay ugala socdaan wax kasta oo dhacaya waqtiga ay dhacayaan iyo runtii waqtiga xilliga ay u baahan yihiin intaba aan ku dadaali doono inay la socdaan haddii alla idmo haddaan usoo laabto dhinaca kale su-aasha aad weydiisay dabcan waa wax meesha ku jira in barta fikirka iyo fogaan araga ay tahay xarun dhowaan la aasaasay waxa loo aasaasayna ay tahay inay ka shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa gacanna loogu geysan lahaa howlaha meediyaha Soomaaliyeed gaar ahaan marka aan ka hadlayno
sida ay u shaqeyso saxaafadda Soomaaliyeed iyo halka ay higsanayso waa wax dhammaan meel kasta ay joogaan bahda saxaafadda Soomaaliyeed ay tahay inay ka wada shaqeeyaan run ahaantii waxaan aad ugu faraxsanahay heerka saxaafadda maanta ay marayso marka sidaas darteed barta fikirka iyo fogaan aragga waxa ay qayb ka qaadan doontaa sidii loo gaari lahaa saxaafad tafaftiran oo ku shaqeynaysa qaabka horumarsan ee maanta adduunyada ay u shaqeeyaan isla markaasna wararka iyo qoraalada u soo bandhigayso si ka duwan kana horumarsan qaabka inta badan hadda meediyaha Soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan hadii Allah idmo dabcan waxaan qiyaasayaa in dad badan oo saxafiyiin rugcadayaal Soomaaliyeed ay ku dadaalayaan in sidaas oo kale ay sameeyaan barta fikirka iyo fogaan araggana waxa ay qayb ka noqon doontaa dadaaladaas loogu jiro sidii loo gaari lahaa saxaafad Soomaaliyeed oo leh tayada ay leeyihiin saxafiyiinta iyo warbaahinta kale ee caalamka hadii Allah idmo Cabdullahi waxa kamid tahay wariyaasha rugcadayga isla markaan idaacado fara badan hore ugu soo shaqeeyay goormay kugu dhalatay fikirkan iyo waliba warbaahintan inaad soo gudbisid maxaa keenay sababaha waxaad la socotaa wixii ka dambeeyay sanadadii 2007 oo dagaaladii ka jiray koonfurta dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ay sii xoogeysteen Ethiopiankii markay soo galeen ciidamadii midowga Afrika la dalbay kooxihii islaamiyiinta ay xoogeysteen waxa bilowday in saxaafadii Soomaaliyeed ee ka shaqeynaysay gudaha Soomaaliya ay soo barakacaan dhamaantood qaarna runtii halkaas lagu waayay qaar lagu dhaawacay taas waxay keentay in saxafiyiintii ay kala firdhadaan saxaafadii iyo tayadii ay lahaydna ay dhaawac badan soo gaartay sidaas darteed muddo badan dabcan waxaan ku fikiri jirnay in bal marka hore isbedel dhinaca nolosha la sameeyo qaxootinimada lagu jiro in laga baxa nolosha lala qabsado hadda marka waxay ila tahay in la soo gaaray waqtigii mar kale dib loo nooleyn lahaa tayadii warbaahinta Soomaaliyeed dabcan aniga iyo saxafiyiin badan oo Soomaaliyeed oo gudaha Soomaaliya ka soo cararay shaqadii ay hayeen soo baneeyeen waxa ay kamid ahaayeen markii Soomaaliya ay ka hana qaaday media madax banaan ama warbaahin madax banaan dadkii loo tababaray si gaar ah ku takhasuska gaarka ah u yeeshay shaqada sida wanaagsan ugu tababartay hadii marka wixii nala soo baray iyo hawshii aan shacabka Soomaaliyeed u haynay aan la soo tagnay hawlo kalena aan iska galnay waxa meesha ku sii lumaya oo aad arkaysaa qaarkii gudaha ku haran la bartilmaameysanayo in tayadii warbaahinta ay sii baabado haddana Muqdisho waxa ka jira dabcan idaacadaha ugu tirada badnaa telefishinada ugu badnaa dalka ka hirgalay haddana waxa dhinaca kale hoos u sii dhacaya sida dad badan oo saxafiyiin maanta ay qabaan tayadii saxaafadda marka si loo soo nooleeyo waa in la helaa saxafiyiintii loo tababaray inay runtii gacan ka geystaan media xur ah oo madax banaan markii ugu horeysay Soomaaliya ay ka hana qaaday waqtiga la galiyay inay mar kale hawshoodii dib u soo celiyaan si markaas loo helo saxaafad la jaan qaadi karta sidaan hore u sheegay adduunka intiisa kale waxyaabaha hadda aan ugu badan oo barta fikirka iyo fogaan aragga ay diiradda saari doonto waxa ay noqon doonaan in kaliya aanan la fiirin wararka joogtada ah ee dhaca oo qof walba oo kamid ah bulshada uu garan karo sida in dagaalo meel ka dhacay dad meeda la soo dhigay xaafadda dhexdeeda laba qof meeda qof walba oo shacabka kamid ah waxaas wada arki kara laakiin in la raadiyo wax qaab ka fog sidaas in wax loo fiiriyo oo wax lagu bedeli kara qalinka markaas ay saxafiyiinta isticmaalayaan because qofka saxafiga ah waxa loo baahan yahay mar walba inuu ku xisaabtamo heer qalinkiisa uu wax ku bedeli karo meediyan horumar adduunyada maanta joogta qof wariye ah waxa laga yaabaa maqaal uu qoray ama faallo uu ka qoray waxyaabaha ka dhacaya macnaha wararka markaas jira inay dawladda iyo shacabka dhan galgasho dadka dhan isu sheegaan oo la iska wareysto si taas mid lamida loo gaaro waa in la helaa saxafiyiin wax ka qori kara cabiri kara xaaladda maanta dalka ay ku jirto gacanna ka geysan kara in mar kale ay dib u soo celiyaan at least tayada sii dhumayso hormar intaan la higsan ka hor waxaa muhiim ah horta in la badbaadiyo tayadii saxafiyiinta markii meediyihii madaxa banaanaa uu soo kacay in marka hore la badbaadiyo kadibna tan kale loo gudo marka barta fikirka iyo fogaan aragga oo runtii aad ugu mahad celinayso dhammaan bahda saxaafadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay gacan ka geysanayaan sidii taas loo gaari lahaa iyadana waxay diyaar u tahay inay ka qayb gasho oo dadaalkaas lagu jiro dhinaceeda ka gasho si bari ka maalin la sugu imaado miis lagu wada hadli karo oo loona badbaadin karo bulshada bahda saxaafadda isla markaasna loo wada shaqeyn karo ay gaaraan waa tahay Cabdullaahi ugu dambeyntii waxaan ku siinayaa fursad aad qaali u ah isla markaana aan filayo asxaab fara badan oo sanadooyin ka hor isugu keen dambeysay inaad salaami doonto halka ay ka salaami lahayd
salaanta dabcan waxaan horta marka ugu horeysa aan si gaar ah u salaamayaa dhammaan bahda saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo eheladeyda meel kasta kala joogaan gudaha dalka iyo dibaddaba intaanan dabcan arrintan ka bixin waxaan jeclaan lahaa inaan uga faa'iideysto munaasabadan Ciidul Fidriga maanta aan ku guda jirnay u dabaaldegayna daraadeed ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan horta sanadkan sanadkiisa kale Ilaahay nagu gaarsiiyo dalkii nabada iyo saxaafadii dhibaatada lagu hayo waxa dabcan marka aan soo xasuusto dhibka ka jira Soomaaliya gaar ahaan dhinaca saxaafadda waxaan ku qiyaasi karaa inay tahay dad ninka saxafiga ah ama gabadha saxafiyada ee Soomaaliya ka shaqeynaysa qof xabsi ku jiro xabsi daa lagu xukumay dil toogasho oo kale because waxa uu sugayaa oo kaliya in maalin fursad lagu helo sida qofka la xukumay isagana sidoo kale uu sugay in maalinkii waqtigiisa la soo gabagabeyn lahaa uu sugay because ma garan kartid qofka ku weeraraya cadowgu wuxuu kugu yahay mataqaanid waxa uu ku dilay lama yaqaano si loogu gudbana waxay u baahan tahay in la helo dawlad Soomaaliyeed oo nabadda Soomaaliya dhan soo celisa wariyaashu waxay ka mid yihiin dadka bulshada waxa weyn ka bedelay saasana loo bartilmaameystay si loo muujiyo inaysan nabad ahayn tusaale ahaan markii laba wariyaa hal maalin Muqdisho lagu dilay aad maqashid waxa isla markii kugu soo dhacaysa meesha inaysan ammaan ahayn danta guud oo laga leeyahayna waa intaas حتى مركز قار إن صحافة الأموسية وحكى حقوق بندط اللي هاي لما مال صوماليا أنا القياسي كريم وحكى جرا دين عيوض إسكوها هي إسكابا ضاف نمنك لبح الشباب وعدد عاد يستدي بعتذر بالشدة إكوهيان لكن دين عيوض كلا ماشي هالجوجة يجي لفظ هان تضم مشاريع كلا دونا كسعودة سمرك لوسي جوج حقوق هان تين العادية مقالة إن تهاي ميلان أمانهن مركو وإن ضدك بالشدة كده موقدة ما نكست لبرت الماميستا سلوا ده ماشي أمان معها وإن مشاريع بدن لغو بحياة أمان كود الله سوء عليه ساس درتي مركو وحن جعلان لا ورياش إنه وحا صدن أي كتحضران وحا الله وحا سمين كران قلن كان قروا ومركز توا إنه قلن كود كود جنادان إنه اسكود يعني إنه يحكو بدلان وقدم بمركو وحن لا هاي سنة كان سنة كيس دم وحن رجعنا سحافة أو اسكبد شيء رنتي فائدة ضدك وجوه الرئي وكفائدة الدولة الرسمية الصومالية الله ديس الدون إنه النقطة ظهر سحافة دين على أمان كجعم كاش كلمة بدن دين على الدولة الفدرالية ugu dambeena waxaan salaamayaa dhammaan bahda saxaafadda Soomaaliyeed meel kasta joogan adiga aad ugu horreysay asxaabta kale ee fogaan arag saaxiibada gaar ahaan ku dhaqan meelaha kala duwan ee adduunka waxaan u rajaynayaa in sanadkan sanadkiisa Ilaahay uu bashbashi barwaaqo nagu gaarsiiyo waa tahay Cabdullaahi Jaamac Cali ayuu ahaa oo isla markaana tafaftiraha barta fikirka iyo wiliba fogaan araga oo barnaamijka salaamaha Ciidul Fidriga nagala qayb galay aad baad u mahadsantahay adiga mudan waatahay dhageystayaal wili waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena xagga ay wiliba wareysiyada iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee daafaca caalamka ku kala sugan qaababka lagu kala iiday shacabka Soomaaliyeed markana qofka ugu horeeya ay wiliba xagga iyo gabdhaha ayaan dhihi karaa magacaaga ku bilaabaya ay wiliba halka aad ka soo hadlayso walaal ayaan leedahay ayaan halkee ayaad kaga sugan tahay daafaca caalamka Nairobi dalkaasi Kenya okay qaab sidee ah ayaa looga ciiday magaalada Nairobi والله ما شاء الله ومدة دوا اسكوت راعي عيد أنا توقوه فرح سماه عيد ونكسل عيد ونكسل أي أنا جنا كلنا وحن علينا يا بنيروبي إن صومالي وحبا إن دامن ومع معنكي يولي بحلوذي وحيابي فرها بدنا هالكاس دياري كيهين صومالي قفنا وقصهرنا بسلادة هذا أركت كاسيين أسود ويننا مركع عيده وقرتي واي هي أنا فرصة كوسين أنا جعل الله هل هل إلا بينات كسلان تهلا دادي قرابة دادي أصحابها كلا جديسن والله ولا الآلة سنتا أمد الصومالية ما يبيجون حاليا عيد وناكسن دمانتي عيد وناكسن أيان إذا الله أنت سوق ويا واتها أدي هذا يضم هاتسنتها هي أيان أي هيد ونقل هاد ليسين دالكاسي كينيا عاصمة ديس مقالة نيروبي عيد وناكسن عيد وناكسن واتهي dhageystayaal ayadoo lagu guda jiro maalin farxada maalin ciida isla markaana shacabka Soomaaliyeed meel far badan ay ku kala ciidayaan ayaa waxaad moodaaba in dhalinyarada intooda badan ay jecel yihiin in asxaabtooda iyo wiliba eheladooda iyo qaraabadooda halkan salaan balaaran ay kaga gudbiyaan markana qofka xiga ee fursadda u helay in uu ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo asxaabtiisa salaamo marka hore magacaaga iyo halka aad ku sugan tahay baraad magacaygu waa Mustafa Abdi Ciise waxaan ku sugnaa wadanka Norway waa gartay Mustafa ku soo dhawow ciid wanaagsan walaal برتا فكركي فوقان أرجع وحي يقول تلاقي شيء إن فرصة أي كسيسو إن هذا ذي قرابة ذي سحمت هذا أتكسل أنت بل سمر كهور هالك أتكسو كنت هاي قاب كلو عيد يولي بقى هذه قاسة سيدا أسكت ديارس ما شاء الله وحرجينا ينبيع لو عيد دون ودن كنروي أنا كشخص أنت هذا وحان صفي عينه إذا رجينا دولا كرا لنا غضو
ciidan iyo ciidii lasoo dhaafay waxaan bilaabay inay farq dheer u dhaxeyn doonto hadduu ilaahay karaan noqdo insha Allah tacaala taasaan rajaynaa waa gartay yaad jeceshahay fursaddan ay ku siisay in hal iyo labo aad kaga faa'iidaysato asxaabtaada iyo heladaada aad ka salaam halkan waxaa ka salaamaa hooyadayda qaaliga Maryam Deeriye Warsame iyo walaalkayga Maxamed Cabdi Ciise iyo walaalkay Xasan Cabdi Ciise iyo walaashay Famaan meel walba adduunka joogaan salaamu calaykum aan dhaha iyo caruurtooda meel walba joogaan iyo waxaan ka salaamayaa asxaabtayda qaaliga Ibrahim Yaxya Khayre Carabi oo ka magac dheer Maxamed Cilmi Sugow Sheekh Nuur Mayo Muuse Axmed Maxamed Cabdullaahi Cusmaan Maxamed Kabtan iyo Maxamed Cabdi Xuseen Cali iyo halkan waxaan ka salaamayaa walaalahayga meel walba adduunka joogaan oo kale iyo caruurtooda waxaan salaamayaa gabadhii distaan jecelahay walaalkii dhalay تصنيف سنة عبد إيو كبده سندس إيو هكذا محك سلام ولكن قارئة إيو حاسكيس إفراح يا عروت هذا ما يقول بيجوجان يا عروت عاشر ديري ورسمه وهذا الله وتدلك مقدشة قارهان حاود ورديق لأيضا وسلامة يا برادة وهذا ما تنقل وقت سلامنا سنة كان سنة كيسو حنكون رجينا أنا بش يبرواقو إن إلهي نقول التأثير واتهاي dhegeystayaal meel walba oo daafaca caalamka ka joogtaan waxaan hawada ay ka leenahay ciid wanaagsan waa maalin farxadeed waa maalin ummadaha islaamka ah oo ah maalin si ugu weyn caalamka markana qofka xiga ee fursadda u siisay shabakada fogaan arag ayaa markana aan eegaya marka ugu horeysa magacaaga iyo weliba halkaad ku sugan tahay السلام عليكم ورحمة الله مقعي ولا وحالي رابع إسماعيل حسن وحان كسونا هاي أما عندنا هاي مقالة خرونيا إن غدنا كنبرلان هذه وفرحنا معناتنا كسوق قبل برنامج كان إيه هون سوان عرق ما شاء الله اسماعيل وكسود ويننا برنامجك سلامها يعني قلت لك عيد وناكسن كورن هلك أدقنت هاي قابك لو عيد يصير لو سودوي والله برادر ما شاء الله هذه درينكي ما أنت مدرسة كوبي كرماهن هذه أنا فرحنا ما شاء الله مقالة جوي قرون كن هذه لو عيدك أصحاب تدمان ما شاء الله إنه ما أعرف ما يستوي يسمع يا وحنا كل دكان مساجد كله هذا في المساجد مروكان وكله ما شاء الله أنا أقول مساجد سومالية مدرسة لكن إن شاء الله وحنجعلنا هنا نسلم مساجد سومالية والمقالة سومالية إن شاء الله تعالى عيد يكون كل مساجد يقليه الله نقدر قاعد هذا فرحنا برادر ما شاء الله إسماعيل أضو فرصة كفاية سنة يا جلال هذا كان إن هل يلبات كسلان والله waxaan jeclaan lahaa asxaabteydii in Soomaaliya qaybta joogtay iyo asxaabta maaragtay Netherland ila joogto dhamaan asxaabihii iyo qaano gaar ahaan waxa aad iyo aad salaam lahay maamadeeda Aamin Ismaan Maxamed oo ku nool magaalada Muqdisho abahay Xasan Diin Shaafa oo asagana ku nool magaalada Muqdisho iyo dhamaan walaalihii waxa kale oo aad iyo aad salaamay asxaabteeda qaaliga ah oo uu ka mid yahay Khalid Sheekh Ahmed oo asagana ku nool magaalada Qoroonigan محمد عبد أحمد وسيدو كلا سجن يقولون وعن كلو آد يا سلام يا أصحاب الفيسبوك دمان سيدا إسماعيل وحيفو وكله دمان أنا نقول سلام يا وريه واتهادي هذه أنا نقول سلام أنا وحن كلنا عيد ونكسن سنة كان سنة كيسة كوجار باش يوجد برواقو وهاجاك دقيستيال صاحب يال مول وباد جوكتان وحن هودا يتكلين هاي عيد وناكسن عيدان عيديدا كوغارا بشيو برواقو واحد مدابع قبدي قنانتكي إنان سو قارني مركنا وحي سو سعطي سو قاتن تبع عنيقا يغوشي سقيسا أنا دمان أصحابتي دوحان ليهاي يو إهلذي قرابدا مول وباد جوكتان عيد وناكسن سنة كان سنة كيسا الله يتكو قارسيو بشيو برواقو وحن إله يتكي قبرياه دالكيو نبادا إيو عافيماد قب برامجكي وأنا نرسل عزياني ومحمد داود عمر محميون بي انتا ينقصوا قبقبين يا عيد وناكسن انتا تندمو كل مدون وحانت كيغتيغا سيدايو نبات قليو هستي عيد وناكسن شوغلي وليبا واد عمر ومالين مالين 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 ومالين مالين 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 وقر المشكلة دا لقى ما يدحون باهو نلقاي الشرفتيو وقر المشكلة ده لقى ما يدحو معه مقاعي الشلفتيو ما موسير قلايو عاد مقا محندي سنتك من صومر لما صحى إلهو سنتك من صومر لما صحى إلهو عين مروضة إلا وين مروضة إلا وين سنتك من صوبر لما صحى إلهو سنتك من صوبر لما صحى إلهو عين مروضة
markastaba adduunyada ba iyo raybay samalayso miso waa maalin farax oo muslimiintu ciido markastaba adduunyada ba iyo raybay samalayso miso masaakiintu garato maxsiyo aqoon مساكين كرتو معطيو أبوه آي وذا محسوين بدي قد محسوين مساكين كرتو معطيو أبوه مساكين كرتو معطيو أبوه آي وذا محسوين بدي قد محسوين شعبي